harimo sharafeedka wasiir dawlaha nabadeynta iyo gobolada bariga Somaliland uu ku maamusay dhalinyaradii aqoon-yahanka ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag, Buuhoodle iyo Xaysimo taasoo loogu talagalay isdhaxgalka iyo wada shaqaynta da'yartii aqoon-yahanka ka soo jeeda deegaanada goboladaas. madashana waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada, agaasimayaal guud iyo marti sharaf kale. Cabdirashiid Xuseen Cabdulle Gargaar, wasiir dawlaha nabadeynta iyo horumarinta gobolada bari ee Somaliland ayaa ka xog waramay ujeedada uu martiqaadkan u fidiyay. ويبرك فريدة بني وهو سدومي يبيش أتاك وهذا القدر قال هذا الدجاج هذا كسوشيد هذا السيجار وحنود الرجال ولا يبغى وسيجار وأبغى كذا يبغى شديد يعيق كذا تبعها بس كم البير ولا بعض بس أنا أتكلم شيء يكون في مية أما مديرنا كسومالنا أما تياس الله ولا تبغى كل كيلو كسياسة وكرش مرة وصوب على كل سوى سدوما إن عادوا تابوا بالبيع واحد من الرسول كتاب على الله قبضته وربنا كان يتقبل كتبه وانا بالبيع يلا إلى سدومي قوة هذا يمكن ديانا بدينا قوم صلاة قوة كتاعي قوم كصدحة واسكحنا كديانا لا يوضع كسومانا نكسي المجتمع برشلة واحد اسكحري كي يتجريش كوكب الأسبوعي كاوي شيران بين المدة وديست بتشوف قبلها شيران كواحد ربنا واحد اسمه حتى وبدأ بديه هذا يضطر يتسكر هذه على هذا الفكر السياسي اللي كنت ولا شاء كذا ربما يرميها من الإمام معي هو يوم مويس قبله يكملها هو عبارة عن يوم قبله يكملها هو الأمور يكمل قبله يكملها هو يكسر رينا وصار حرج يعود له قبله يكملها وجدنا واحد سيد وصل واحد في الدنيا نبتدي الآن يعبر شذا يعبر عدة إسرائيل وقوم بقير إسرائيل كلامه qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoon-yahanka gobolada bariga Somaliland ayaa wasiir dawlaha uga mahadnaqay talaabadan ugubka ah ee uu iskugu keenay waxgaradka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka gobolada ka soo jeeda iyagoo ku bogaadiyay xogayaha golaha wasiirada. agaasimaha guud ee wasaaradda hidaha iyo dhaqanka ayaa madasha hadal ka jeediyay abaandulaha ciidamada qaranka Somaliland Saleebaan Geesood, wasiir dawlaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Axmed Aadan Boocame iyo wasiirka khayraadka biyaha Somaliland Xuseen Cabdi Boos ayaa dhalinyaradan la dardaarmay. dhalinyarada waxa tihiin labeentii iyo dadkii wax bartay oo gobolada ka soo jeeday bariga Sool, Sanaag iyo Cayla Xaysimo waxaan ugu boorinayaa inaad dawladda ka shaqaysaan dadkii xooliga weydiintay idiguna waxaa tihiin dadkii wax bartay dhammaantiin teknolojiyada casriga waa taqaaneen uga faa'iidaysta inaad diyaasbarada aad ku dhiirigelisaan inay dadka oo soo caawiyaan kuwa hay-adaha xiriirka leedahay isqaanin saas oo kale idinka codsanaya dhalinyaro nabadda inaad nagala shaqaysaan oo xoog saarno dhammaanteen nabadda sidaynu gobolkeennii nabadda u soo jiidi lahayd dalkeennii bariga Somaliland abaaraha ka jira abaaro xoog badan baa ka jira mas-uulahaan iyo dhalinyaradaba waxaan idinka codsanaynaa inaan abaaraha sidaynu uga shaqayn lahayn oo aynu wax uga qaban lahayn dadkaynu u gurman lahayn aynu u wada diyaargarowno. dhalinyaradina aqoon-yahanka tacliintu ma dhammaato, waxbarashadu ma dhammaato, ay iswaranina halkaasi ku xidhantee koorsay qaada waxbarashada waa fursad inoo bilaabantay maanta keliya insha Allah noqon mayse istaba joog bay noo noqonaysaa. nabadgelyadu waa muhiim arrintaas xaalada baan anigu wuxuu baan hayo aad baan runtii ay taabatay waliga dowladii halkaa ay ku nimi markii aan nimiba oo la magacaabayna aad waliga aniga dowladda soconnaa oo aan dhammaan wadan halkaa nimi dee waxay iska nimid inkastoo wixii aanay weli soo afjarmin waxaan jeclaan lahaa dhalinyaroy waxaa dhimanaya dhibaatadu aad u gaadhaysaa haddaad ugu yaraato noolaataan haddii magaalada hadda laascaanood
especially ay ka dhacaan waxbarashadiina aad u saameynaysaa noloshiina iyo shaqadiina iyo xasiloontiina aad u saameynaysaa